labada nin oo lagu kala magacaabo Gavin iyo Tanner ayaa maxkamad ku taala gobolka Texas ee dalka Mareykanka Khamiistii dhaweyd la soo taagay iyagoo wajahaya xabsi noloshooda oo dhan kadib markii lagu helay inay qorsheynayeen duulaan ay doonayeen inay ku qabsadaan jasiirad ku taala dalka Haiti oo lagu magacaabo Gonaf Island. labada nin ayaa Agoosto 2024 bilaabay tababar ciidan oo ay ku baranayeen sida hubka loo rido, dooniyaha loo kaxeeyo, loona qorsheeyo howlgallada khaaska ah. mid kale oo naadir ah ayaa ahayd xitaa inay xaadireen iskuulo luuqadeed oo ay ka barteen afka looga hadlo jasiiradda ay doonayeen inay ku duulaan. hubkii ugu badnaa ayay sidoo kale iibsadeen ee suurtagelin karay in duulaankoodu guuleysto. intaa kuma ay joogsanay waxay ciidan ahaan u qorteen dadka aan guryaha haysan ama homelesska ah ee magaalada Washington, iyadoo xitaa xogtu inta raacisay xitaa inay online-ka ciidan kale ka qorteen kadib markii homelessku cudud ahaan ku filan waayay. jasiiradda ay doonayeen inay qabsadaan waxa lagu warramay inay ku nool yihiin 87,000 oo qof, halka ay baaxadduleed ahaan ka kooban tahay 751 kilomitir oo laba jibaaran. waa mid ahaan jasiiradaha ugu waaweyn ee ay ka kooban tahay jasiiradda u qaybsan dalalka Haiti iyo Dominican Republic ee lagu magacaabo Hispaniola. xogtooda la helay ee maxkamaddu xukunkooda u cuskatay ayaa lagu sheegay inay doonayeen inay dilaan guud ahaan ragga ku nool jasiiraddaas, la wareegaan jasiiradda, dabadeedna dumarka iyo carruurta kufsi iyo qafaalasho isugu daraan, taasoo sababtay inay haatan xabsi cimrigooda ah wajahayaan.